shir jaraa'id oo maanta ku qabtay gudaha madaxtooyada dawlad goboleedka Khaatumo State of Somalia wasiir ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka Khaatumo Cabdifataax Ismaan Faarax Dhalac ayuu uga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin imtixaanka sanad dugsiyeedka 2012-2013 iyo sidoo kale 18 May oo uu sheegay inay xusayaan maalinta nadaafadda deegaamada maamulka Khaatumo ugu horreynna wasiirku waxa uu ka hadlay arrimaha imtixaanka dugsiyada maamulka Khaatumo State of Somalia shirkan jaraa'id aan ku qabtay xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Khaatumo waxaan kaga hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad waxa weeye dhammaan maamulayaasha iyo gudoomiyayaasha waxbarashada gobolada degmooyinka iyo guud ahaanba ardayda ka qayb qaadan doonta imtixaanaadka shahaadiga ee dawlad goboleedka Khaatumo waxaan iclaaminay wasaarad ahaan ama aanu ku dhawaaqnay 25 bisha shanaad 2013 inuu bilaamayo imtixaanaadka shahaadiga ee dawlad goboleedka Khaatumo waxaanu leenahay ardayda iyo macallimiinta iyo waalidiintuba sida ha ogaato hana laga wada qayb qaato campaign-ka imtixaanaadka shahaadiga waxaan leeyahay oo halkan aan uga hambaliyaynayaa ardaydii reer Laascaanood ee diiday inay ka qayb qaataan imtixaanaadka Soomaalidiidka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin diidmadaas waxaad garawsateen oo mar walba ogtihiin inaydan kamid ahayn Somaliland oo aad tihiin dad iyo dal iyo deegaan madax bannaan waa mustaqbalkiina iyo masiirkiina siyaasadeed aad u heelaysaan walaalayaal weydiin mahad celinayaa waadna ku mahadsantihiin waxaan shacabka reer Khaatumo gaar ahaan degmooyinka Taleex Boocame iyo Buuhoodle ama gobolka Cayn guud ahaanba aan faraynaa inay soo dhaweeyaan ardayda reer Laascaanood dejiyaan soo dhaweyn iyo hambaliyo qurux badan iyo caleemo ruux ay u fidiyaan ardaydaas yaryar ee runtii ku mahadsan go'aanka ay gaadheen waxaan idinku bishaaraynayaa ardayda reer Khaatumo hadaatiin inaad helaysaan shahaadooyinka dawladda dhexe ee Soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay sidoo kale wasiirku waxa kale oo ka hadlay arrimaha 18 May oo uu sheegay inay ku beegan tahay maalinta nadaafadda deegaamada maamulka Khaatumo laga xusayo uguna baaqay bulshooyinka reer Khaatumo inay ka qayb qaataan maalinta nadaafadda deegaamada maamulka Khaatumo oo wasiirku sheegay inay ku beegan tahay 18 May qodobkayga labaad waxa weeye dhammaan gudoomiyayaasha gobolada ururada bulshada ardayda haweenweynaha degmooyinka iyo gobolada Khaatumoba waxaanu u soo jeedinaynaa inay ka qayb qaataan 18 May waa maalinta ololaha nadaafadda iyo qashin gurista deegaanada Khaatumo maalintaas waa maalin aynu u qoontaynay maamul ahaan in deegaanada Khaatumo qashinka laga gurayo nadaafadda waxaan leenahay degmooyinka waaweyn ee dalka reer Khaatumo inaad u diyaar garowdaan maalintaas taariikhiga ah ee nadaafadda iyo qashin gurista 18 May waxaan leeyahay gaar ahaan shacabka reer Laascaanood waan ogahay inaad tihiin dad fikirka iyo ficilkaba ka xor ah maalintaas waxa inoo ballanaa in aynu nadaafadda ka wada shaqeyno guud ahaanba isku soo wada duubo qodobada uu wasiirku ka hadlay ayaa saameyn ku leh Somaliland oo iyagu u dabaaldegay xilligan 18 May